Maimuna Daawud Axmed oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Gabley isla markaana ah murashax u ordayay doorashada aqalka deegaanka ee la filayo in la qabto 31 May ee 2021 ayaa gabi ahaanba ka tanaasushay doorashadaasi golaha deegaanka iyadoo u tanaasushay Mursal Ismaaciil Cumar oo ka mid ah murashaxiinta u ordaya doorashada aqalka deegaanka ee gobolka Gabley isla markaana ay ka soo wada jeedaan isku ardaa. Maimuna Daawud ayaa sababta ku macnaysay inay tanaasul samaysay markay aragtay isbarbaryaaca iyo hirdanka culus ee ka jira gobolka Gabley isla markaana iyadoo halkaasi sheegtay inay tanaasulka u samaysay murashaxaasi. Munaasabad kooban oo ka qabsoontay Hotel Galoley ayaa waxaa halkaasi kala soo qayb galay shaacintaasi ay ka tanaasuleysay hankeegii murashax Muxyidiin Cabdi Cali oo ka mid ah murashaxiinta aqalka baarlamaanka u ordaya ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. marka labaad waxaan walaalkay iyo anigu Maimuna Daawud halka waxaan iskugu nimidnay inaan uga tanaasulo maxaan ku raadayay jagada musharaxnimo muddada badan aan u soo xiiqsanaa aanan niyeystay ama rajaynayay inaan ku soo baxo. waxa dhacday in la dhimay kuraasidii Gabley sidii maxaan ku raadayay 22 kursi oo ku soo koobtay 13 kursi. markaan fikiray anigoon cidna kala tashanin arkayna maanta marxaladdu halkay taagan tahay inay wada handaraaban tahay ayaa waxaan gartay inaan walaalkay Mursal oo nobel ka soo wada jeedno ama aanu nahay tol family isku dhow inaan uga tanaasulo markaasi jagadii musharaxnimo oo ku wareejiyo walaalkay Mursal oo garab iyo gaashaanba la garab taaganahay ananu leenahay taageerayaashaydii Mursal baynu isku wada raacaynaa waayo dambaynu moodnay waxa weeye oo arkaysan maanta marxaladda la maraya inay adag tahay. waxa kale oo ku daraya runtii dadku way wada jabsan yihiin beelaha dhanna way wada eeriyayaan haddana anagoo dadkaasi ku dayanin ayaa tala gaar ah labadeedu gaadhnay inaanu kursigii hal mid isku geysano oo halka mid markaa u guntano. waxaad arkaysaan inuu Muuse Biixi uu xal mooday inuu tolka xidhxidho waxaan u xidhxidhanaya waxa weeye codadka lumaya ayuu ka fikiray. waxaan leeyahay musharaxiinta kale ee gobolkayga Gabley ay wada daba yaacaysa ama baarlamaan ha ahaato ama deegaan ha ahaatee niman yahow tashada waxay ku foorartaa maanta gobolkeena oo kaliya ku foorartaa ummadda kale way wada kala tanaasuleen way yareeyeen socodkii laakiin talo waxay u taalaa gobolka Gabley iyo degmada Arabsiyo aniga u horeeya waan tanaasulay waxaan la garab gelayaa walaalkay codkayga iyo taageerayaashaydaba idigana waxaan idin leeyahay siiba gobolka Gabley Jibril Bokor baan baaq gaar u diraya waxa marna baaq labaad baan u diraya waxaan idin leeyahay hal kala tanaasulo nin waliba isagu gaar ah isku sheekaysto qofku markuu isagu soo sharaxo hanka hadii uu kaligi la yimid wuxuu go'aan ka gaari karaa inuu hadana kaligii ka tanaasulo laakiin hadii tala qof kale ku leeyimid aad ku hawl gasho kulay taladuna dadku baa kula lahaanay way ka baahaysaa musharax kasta waxaan leeyahay nagu dayda maanta ma aha tii hore chanceski horena lama hayo hadalka sii badin maayo is wanaagsan mar hadii la inoo ogolaaday kaar bedelasho oo ninkii ka hawl yaraystay markii hore kaarkiisa matalan Hargeysa ka qaatay ama Berbera ka qaatay ama maxaan ku raadayay gobol kale ka qaatay ee u dhashay degmada Arabsiyo gobolka Gabley waa chance wanaagsan waxaan ku leeyahay muwaadin ka faa'iideyso si aad ugu yeeliso xildhibaankaaga deegaan soo kaar bedelo iskuna hawl isku xilqaam waxaynu isku ognahay isgarab istaag iyo guul baynu isku ognahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmaanir Rahiim الحمد لله رب العالمين ما أنتوا معلومين وما أنت تاريخية وحنا كان هذا هو محلنا أحمد وما أنت حالكن كجرا واقضي إن يتناسو شيء وهاي مشرح نمدي دي يهانكي أنت دير يسوي دي هاي أنا جاي يتناسو شيء تاسيو هاي يتناسو شيء مركي هاي يكتي دان تريركا مركي هاي يكتي وضد الرشاد أيه وضد الشركة حالكن ما أنت كجرا واقضي إن يتناسو شو وأنا محلنا قيا boqolkiiba boqol waan uga mahadnaqayaa maxay hayday runtii waxay ahayd qof wanaagsan oo maxay hayday intaas oo dhan deegaanka ka shaqeynayay runtii anigana iga dardar badnayd oo xagga ololaha aniga badnayd haddana markii ay eegtay danta reerka iyadu iskeed ugu dhawaaqday inay tanaasusho waan mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaanan leeyahay taageerayaasheedii annaga oo dhamaantayo gacmaha haysanaa in maxay hayday halkii aad hawshii aad wadeen iyo dadaalkii aad wadeen inaad halkii ka sii wadaan oo maxay hayday aad
codkii iyo taageeradiiba aad siisaan maxay ahayd walaashayna waxaan leeyahay sidii aad marka horeba reerka isugu xiri jirtay hawsha waday imikana halkii ka sii wad mar labaad iyo mar saddexaad waan mahadnaqayaa waxaan kaloo halkan baa ugu soo jeedinayaa dhammaan bulshooyinka reer Arabsiyood meel kastoo ay joogaan inay u diyaar garoobaan oo ay u soo baxaan sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka ninkii kaarku ka lumay iyo kii maxay ahayd goobta bedelanayayba in laga faa'iideysto maalmaha yare kooban runtii codkeenu magaalada ahaan aad buu yar yahay dadkeenu aad u may qaadan waxaan idin soo jeedin lahaa in maxay ahayd aad fadhiga ka kacdaan oo aad u diyaar garoodaan sidii aad kaarka u qaadan lahaydeen qof walba qofka ugu dhow soo kaxeeyo oo ku dhiirigeliyo sidii kaarka u qaadan lahaa hubka ugu weyn ee lagu dagaalamaya iminka waxa weeyaan waa kaar nimaan kaar haysanin dee cidna waxba u tari maayo ninka doonaya deegaankiisa inuu wax ka qabto iyo inuu xilbaan soo saaro muhiimadu waxa weeyaan inuu kaarka qaato isla markaana kaarka ilaashado si uu hadhow tolo ugu codeeyo marka waxaan idin soo jeedin lahaa dhammaantiin inaad sida ugu dhaqsaha badan leh iminka maalmo badan bayna dhaafay ilaa 5 cisho ilaa 4 cisho in yar baa baynoo hadhay intaa yar hadhay inaynu ku dadaalno sidii aan kaarka u qaadan lahayn halkan waxaan uga mahadnaqayaa Maymuna Daawud oo juhdi badan iyo waqti badan soo gelisay inay noqoto xildhibaan golaha deegaanka Gabiley dabadii markii maanta eegtay xaaladda iyo waqtiga iyo waayaha iyo sida lagu soo baxayo oo halkan kalena mursal taagan yahay waxay u tanaasushay mursal positionka golaha deegaanka waxay tahay runtii tusaale in laga daydo gobolkuna kaga daydaan waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland kaga daydo waa go'aan geesnimo leh qof hawl soo waday oo haddana markuu xaaladii eegay iyo sidii waxyiin eegay iyo maanta in cod lagu soo baxay eegay tanaasushay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay waa hambaliyo tusaale nool ayaa tahay insha Allah waxaan rajaynayaa xildhibaano kalena inay kaaga dayan doonaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad ayaan leeyahay ugu mahadsan tahay go'aan waxaad gaadhay maanta geesinimo leh waa Muuse Xuseen Xasan Zom News TV gobolka Gabiley.